dhalasho. qisadan ayaa waxay dhexmartay Fircoon iyo haweeney u shaqeyn jirtay. haweeneydan ayaa waxay heen jirtay ama u adeegi jirtay gabadha uu dhalay Fircoon. maalin maalmaha ka mid ah haweeneydan ayada oo gabadha Fircoon tinta u hagaajinayso ayaa waxaa ka dhacday shanladii. markaasay waxay tiri bismillaah. gabadhii ayaa waxay ku tiri rabbiga aad sheegayso ma aabahi ayaad ula jeedaa? markaasay waxay ku tiri maya, waa rabbigana wada abuuray. gabadhii waxay u tagtay aabaheed waxayna u sheegtay waxa ay haweeneydan tiri. Fircoon ayaa u yeeray haweeneydii wuxuuna ku yiri rabbigaaga waa kuma? waxay tiri waa Allah, adiga iyo anigana wada abuuray. Fircoon aad ayuu u carooday wuxuuna ciidankiisii ku amray in caruurteeda loo keeno. wuxuu diyaariyay saliid aad u karkarayso. markaasuu wuxuu u yeeray haweeneydii wuxuu ku yiri rabbigaaga waa kuma? waxay tiri rabbigayga iyo rabbigaaga waa Allah. wuxuu amray in wiilkii u weynaa weesheeda saliidda lagu tuuro. waxaa lagu tuuray saliidii. kadib wuxuu soo qabtay wiilkii ku xigay. markaasuu ku yiri haweeneydii rabbigaaga waa kuma? waxay tiri waa midkana wada abuuray. saliidii ayuu ku tuuray wiilkii labaad. wiilkii ugu yaraa dhabta u saarnaa ayaa la soo qabtay. wuxuuna ku yiri Fircoon waa kuma rabbigaaga? haweeneydii way aamustay. ilin ayaa ka soo daadatay. kadib Allah subxaanahu wa tacaala ayaa wiilkii yaraa ka hadashiyey. wuxuuna hooyadii ku yiri hooye ha baqin, xaq ayaad ku taagan tahay ee ku dheh Allah ayaana wada abuuray. hooyadii ayada oo muujinayso geesinimo ayay ku tiri Fircoon rabbigaaga iyo rabbigayga waa Allahna wada abuuray. kadib wiilkii yaraa ayuu saliidii ku tuuray. hooyadiina waa uu ka dabageliyey. markii uu jirkoodii gogo'ay ayuu lafahoodii ka soo saaray saliidda wuxuuna ku tuuray webi meesha ku yaalo. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam markii la dheelmay ayuu wuxuu arkay waadi aad u udgoon badan. markaasuu wuxuu weydiiyey Jibriil calayhi salaatu wasalaam waxa uu yahay udgoonkan. Jibriil ayaa ku yiri rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa haweeneydii tinta u shalan jirtay gabadhii Fircoon iyo caruurteeda. markii Allah ay rumaysay isagana ay tala saaratay ayuu wuxuu ku karaameeyay in udugeeda laga soo carfiyo meel aan dhaweyn. qisadan waxaynu ka faa'iideynaa inay habboon tahay inaad xaqa ku taagnaato, maxaa yeelay si waliba uu baadilka u sara maro xaqa ayaa baaqi noqonayo. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ku cusub tahay jaalka maalmaha fadlan subscribe dheh gameelka riix si ay kuu soo gaaraan waxyaabo cusub aan soo dhigi doono. mahadsanid.